kooxda Barcelona ayaa marti u noqon doonto kooxda Levante kulan ka tirsan horyaalka La Liga kana tirsan toddobaadkii 36aad xilli ciyaareedka. Barcelona ayaa kulanka soo galaysa ayagoo doonaya inay ku soo laabtaan wadada guulaha horyaalka La Liga waliba si kumeelgaar ahaan hogaanka ay u qaban doonaan caawa hadii ay ka badiyaan kooxda Levante. Dhanka kale kooxda Levante ayaa soo galaysa kulanka ayagoo u dagaalamaya sidii ay u soo baxsan lahaayeen boosaska loogu haro tartanka La Liga xilli ciyaareedka dambe. Kulanka Levante vs Barcelona tartanka horyaalka La Liga dalka Spain saacad ciyaarta la daawan doono waa 5 saac oo habeenimo xilliga Geeska Afrika. xaqiiqooyin kulanka kooxda Barcelona ayaa gaaray guulaha ugu badan horyaalka La Liga ayagoo leh 22 guul nala barbaro kooxda Real Madrid kulamada la ciyaartay kooxda Levante taariikhda La Liga. Levante ayaa badisay 2 kamid ah 3 kulan dambeysay ee Barcelona kula ciyaartay garoonkeeda Estadio Valencia waana in hal kulan ka badan 11 kulan hore. Kooxda Barcelona ayaa dhalisay kasta oo kamid ah 29 kulan u dambeeyay ee la ciyaartay Levante ayagoo wadar aan dhaliyay 86 gool. Levante ayaa laga badiyay 6 kamid ah 8 kulan u dambeeyay ee horyaalka La Liga markii ay kaliya gool daro la kulmeen 4 kulan 22 kulan u dambeysay horyaalka La Liga dalka Spain. Soo socdaale kulanka caawada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Levante.